wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Yuusuf Ciise Xawar iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro ayaa maanta warbaahinta si wada jir uga hadlay xarunta maamulka gobolka Sanaag waxayna ka warbixiyeen xaaladda amni ee gobolka iyo dagaal saaka ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ciidamada Soomaaliland iyo Puntland waxaana ugu horeynba xaaladda guud ee dalka ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland waxaana uu sheegay inuu dagaalka Tukaraq ka dhacay ee Soomaaliland iyo Puntland u dhaxeeya ay ciidamada Soomaaliland ka gaadheen guul la taaban karo isagoo ka hadlayana wuxuu yiri waan maqashay maranaya saaka ilaa ayamaha kan turtuur baa ka jiray aaga Tukaraq jidda hore saaka dagaal baa ka dhacay dagaal xoog leh buu ahaa dagaal haduu dhaco khasaaro waa dhaca laakiin waxaan idinku bishaareynayaa oo farxada ciidamadeenu inay hore u durkeen mooyaan inaan guul darro iyo xagal dac ka soo gaarin dagaalka xabadu nin la aabo maaha khasaaro waa dhaca laakiin khasaaro aan badnayn sidaan xogta ku helay waa dhacay haddana dagaalku waa joogsaday oo wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in ilaahay raxmad iyo roob markii dagaal ka socday ka shubay oo dagaalada roob ka da'ay ciidamaduna xoogaa meesha joogeen hore uga kaceen مسافرنا لا يدور كيلومتر بهرو دركين halkaas ay difaac hadda ugu xiran yahay waxa badan in ka dhaxaysaana ma jirto guulahan uu gaanay waxa kamid ah inaynu ciidankeenu hore u talaabay ciidankii aad marka weerar ku soo qaaday meeshii dagaal ka dhacay bartamaha fadhiyeenba inay hadda dib uga kiciyeen waxa wanaaga oo horumarka always taabaha la galaa khasaaro waa dhacay meel dagaal ka dhacay waa meeshii laakiin maanta guul baan joognaa alxamdulillah taasana ku jeednay ilaahayna inuu saa ku qabuujiyo dadku baa dhimanaysa walaalaan hadda wax technical laga qabsaday ma jiraan inaanu technical qabsanay oo laga gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag oo maalmahan ay ka taagnaayeen shaqaaqooyin dhaliyay amni darro degmooyinka Ceelaf Weyn iyo Ceergaabo waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in nabadgelyada guud ahaaneed ee gobolka Sanaag ay gacanta ku hayso dawladdu xaaladda gobolka Sanaag imika aad bay u degan tahay waanu nabad qabnaa shaqaaqooyin ruux iska dhacdhaceen haddana raqba oo kurgay dadkii joogay gacanta ay ku dhigeen wax dhibaatooyin kama taagna odayaashii maanta gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo bartamaanka ku kulanay waxaan isla qaadanay in si wada jir ah nabadgelyada gobolka Sanaag aanu gacanta u wada dhigno munaafiqiin wax magaratada yar inagu dhex jirtana amnigu soo wada jeesano waxaan filayaa inaanu ku guuleysan doono in kastoo aan qadarka la baasin kareynin inaanu nabadda ku sugno magaalada Ceergaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaagba waxaan leeyahay dadka isticmaala Facebook-yada WhatsApp-yada iyo Twitter-yada waxaan teknoolajiyada cusub ee waxaan ka warramaa ee dabshida هو قادان إن عذابت إلهي ينقلوا كل سنة munaafiqiin